daawadayaal mar kale soo dhawaada gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan deegaanka Al-Kawthar ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay hareeyeen duqeymihii ugu badnaa xalay ay ka geysteen diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska kuwaas oo ka caawiya dawladda federaalka Soomaaliya inay duqeymo baan la beegsata ururka Al-Shabaab ee kula jira dagaalka. haddaba maxaa qasaare oo ka dhashay duqeymahaasi culus ee ay ka geysteen deegaanka Al-Kawthar diyaaradahaasi xalay waxa rakii ugu dambeeyay aan kula wadaagi doonaa sidoo kale ururka Al-Shabaab koox lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa xalay waxa ay gudaha u galeen dalka Kenya magaalada Garissa iyadoo halkaasi ka geysteen dagaal saldhig ciidan oo booliis oo Kenya leeyahay halkaasi ku weerareen 6 askari oo Kenya ayaa ku dhimatay sidoo kalena 4 kale oo askari oo Kenya kuwa kaydka loo yaqaan ayaa ku waraawacmeen. haddaba maxay yihiin ururka Al-Shabaab ee gaaray dalka Kenya mise waa koox kale oo dalka Kenya ka soo baxay oo falaaga ah maxay dawladda Kenya u eedeysay falkaasi ururka Al-Shabaab warkii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagi doonaa. ugu horeyn hadii ay tahay markii ugu horeysay ee soo booqatay janaalka Amiir Suleyman fadlan waxa ka codsanayna in muuqaalka subscribe saartid like saar muuqaalka oo share gare gaarsii saaxiibadaada mar kale aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. waa hagaag daawadayaal deegaanka Al-Kawthar ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee koonfurta Soomaaliya ayaa xalay waxa ay ka geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska duqeyn culus iyadoo ururka Al-Shabaab halkaasi ay kula beegsadeen duqeymo maalmihii ugu dambeeyay hay diyaaradahaasi waxa ay dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo caawin siinaya waxa ciidanka dhulka ee dawladda waxa ay duqeymo halis ah sidoo kale culculus ay la beegsanayeen ururka Al-Shabaab iyagoo qaarkood ku dilay horjoogayaal caanka ahaa ururka Al-Shabaab dhexdooda. hase ahaatee xalay ay ahayd mid ugu darneyd ee ka dhacday duqeyn culus oo ka dhacday deegaanka Al-Kawthar ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasi ay wararka inaga soo gaarayeen dadka deegaanka ay tibaaxayaan in ay ku dhinteen horjooga iyo sidoo kale ilaaladiisa. horjoogahana ururka Al-Shabaab caanka ahaa ayaa waxa ay sheegeen in halkaasi uu joogay arrimo shaqo iyo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaas ku sugnaahay diyaaradaha droniska ama sidoo kale sirdoonka dawladda federaalka Soomaaliya iyo midka caalamiga ay ka war haleen halkaasina waxa ay kula beegsadeen duqeyn culus iyagoo halkaasi dabi ahaan ay ku nafwaayeen horjoogihii halkaasi ururka Al-Shabaab ku tirsanayay sidoo kale ilaaladiis. dadka deegaanka ayaa cabsi ka qabay in diyaaradahaasi ay dhinaca kale ka saameyn ku yeelato ama ay dhibaato ka soo gaarto. hase ahaatee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa laba jibaartay dagaalka ay kula jirto ururka Al-Shabaab iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ku qaadaysay weerar cirka iyo dhulka ah iyadoo dhawaan uu madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo tagay magaalada Cadale sidoo kale guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan isagoo halkaasi u tagay sidii uu ula socon lahaa dhaqdhaqaaqyada military ee ka socdo ee halkaasina lagu jiro dagaalka ururka Al-Shabaab isagoo booqday furimaha sidoo kalena la qaatay kulamo gooni ah macaawusleyda iyo odayaal dhaqameedka beelaha Xawaadle iyo Abgaal sidoo kalena sidii dagaalka ay u xoojin lahaayeen macaawusleyda bariga gobolka Hiiraan ayuu madaxweynaha sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay u tagay magaalada Moqokori iyo sidoo kale Maxaasi sidoo kale gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka jirto aadan ya ku jirto degmada aadan yabaal iyo sidoo kale Cadale oo ka tirsan magaalo xeebeedka ee gobolkaasi Shabeellada Dhexe. si kastaba ahaatee dawladda ayaa waxay xoog saaraysaa inay mar kale ee dagaal xoogan oo ka falka ururka Al-Shabaab la kula jirto ay la gasho iyadoo sidoo kalena duqeymo baan ka geysanaysa gobolka Jubbada Dhexe ay ku jirto magaalada Jilib xarun oo ah ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale gobolka Shabeellada Hoose iyadana lagu tilmaamo goobaha ugu adag ee ururka Al-Shabaab ay ku joogaan gobolkaasi ama koonfurta Soomaaliya in adag tahay bixintooda ama ay adag tahay in mar kale si fudud loogu guuleysto. hase ahaatee dawladda ayaa isku dayaysa inay xakameyso ay dagaal baan la gasho sidoo kalena iyadoo dhawaan dhinaca kalena la sheegay in ururka Al-Shabaab ay dagaaladaas iyagana dhinacooda ay laba jibaareen iyagoo dagaalo ka fool ku qaaday salgada ciidamada militariga dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin gobolada Shabeellada Hoose iyo sidoo kale Hiiraan iyo Galgaduud. dhinaca kalena koox lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama ee koonfurta Soomaaliya ama guud ahaan gobolada ka dagaalama gudaha Soomaaliya ayaa xalay waxa ay u dhaceen ciidamo kaydka booliiska Kenya oo ka joogay xero Garissa u dhow taas oo ay gudaha u galeen iyagoo la wareegay hubkii halkaasi yiilay sidoo kalena waxa ay dagaal kula galeen ama ay ku laayeen askartii halkaasi joogay dhulkii hubkii ay markaasi meesha ka qabsadeen sida ay xaqiijisay dawladda Kenya.
dowladda Kenya ayaa waxa ay ku eedeysay falkaasi kooxda ururka al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya hase ahaatee weli maysan xaqiijin dhinacooda ururka al-shabaab hase ahaatee dowladda Kenya ayaa xaqiijisay in ay ku geeriyoodeen in ku dhow 6 askari halka 4 kamid ah ciidamada kaydka booliiska dalkaasi Kenya ay ku dhaawacmeen dagaalyahanadii ama kooxdii hubaysneed ee falkaasi geystay ayaa la wareegay hubkii halkaasi yili iyagoo baxsaday aan la ogeyn halka ay ku baxsadeen hase ahaatee xirada waa ay faarujiyeen kadib markii ay qaateen wixii halkaasi yilay askartiina halkaasi ay ku kala buriyeen ama ay ku kala carareen kadib 6daas askarina ay ugu geeriyootay dowladda Kenya ayaa hadda sheegtay inay gacan ku haynta xiradaasi iyada la wareegtay hase ahaatee ay ku raad joogto kooxihii hubaysnaa ee geystay falkaasi ama ay ku geeriyoodeen askartaasi booliiska kaydka ee dalka Kenya halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa daawada ee barnaamijkeeni ugu horeyn hadii aad tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka Amiir Suleymaan waxa ka codsanaya inaad muuqaalka subscribe inaad muuqaalka like saartid janaalka haduu subscribe ku aheena fadlan subscribe saar muuqaalka like saar share garee gaarsii saaxiibadaada mar kale aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa